ku soo dhawaada codka ubax. kusoo dhawaada codka ubax. Codka Ubax, a platform dedicated to discussing ideas that affect our society the most. wacyigelinta, arrimaha sugaanta, Culture, and the voice of storytellers. assalaamu calaykum, kusoo dhawaada codka ubax. waa qaybtii afraad ee buugga gaax. dhegeysi wacan. gaax cutubka 8aad. cali. baabuurku dheereeya, wakhtigu orod badana marka lagu wado meel aanad u socon. maxay wax waliba mararka qaar kuugu wada heshiiyaan? maxaa dhinac lagaaga wada maraa? wakhtiga, askariga soo qabtay, kambaas ee baabuurka wada, iyo dadka magaalada u dhashay oo aan u hadlin. waxaasba mid ayaa kaga daran. madaxweynaha go'aansaday inuu dalka ka saaro qof aan waxba galabsan. hogaamiyaha go'aamiyey inuu reero dhan ka kaxeeyo dhul nabad ah si uu u geeyo meel lagu ugaadhsanayo. xaaladda dalkiisa ka taagan ayuu ka fikiray. imise maalmood ayuu sii noolaan doonaa? nimankii tigraygu sidee ayay ka yeeli doonaan? maxaa ku kalifay madaxweynaha inuu eryo? inuu dadka kale la naf yahay miyaanu ogeyn? colaaddu saamaynta ay leedahay soo ka og. cali waa uu ogaa inay Soomaalidu in badan fogayso dadkiisa. waa uu og yahay in aan xanta looga duwan dhegaha, balse inay u hadli waayaan ma uu filayn. waa uu ogaa in aanay dad xun ahayn, waxase uu gartay in iyaguna wanaaggooda aanay ogeyn weli. go'aan degdeg loo gaadhay ayaa isaga iyo hooyadii kala kaxeeyey, hodanna ka qariyey. durba gabiley ayaa la sii marayaa. inkaari kugu dhacday ka wadow. oogada naxariista daran ee uu ku fadhiyo waxa kaga daran dhimbiil aan muuqan oo uu ku taagan yahay. waa mustaqbalka sugaya hodan. halkee ayay ku dambayn doontaa? mid kadeedan ayaa kollay u iman doona, mid aan ogeyn in la jecel yahay, ajalna darteed loo goyn lahaa, mid ay isku reer yihiin, mid Soomaali ah. haddii uu Cali ahaan lahaa Soomaali, hodan kama uu baqeen. marka horeba qashinka ma uu qaadeen. sida qayrkii ayuu shaxaadi lahaa inta wax haysata. maqaaxiyahana wuu ka qosli lahaa. af yar oo Ilaahay u fududeeyey ayuu kula haasaawi lahaa. hadhowna 4 adeer ayuu aabbaheed u kaxaysan lahaa. sannadkiiba 3 carruur ah ayuu ka dhali lahaa. ciil weynaa. laakiin iminka waa nin Oromo ah, nin walaalkeed ah, balse ay u aragto ajnebi. geeridu waa dhowr nooc. midi waa tigrayga oo ku toogta, midina waa hodan oo lagaa guursado. ilaahayow, ta hore ayuu doortay. magaalada bartankeeda, barta xadka, waxa taagan ciidankii dalka oo meel la isugu keenay. shaqada meesha ka socota ayuu sheed ka arkay. dad sii qulqulaya oo hareeraha laga joogo ayuu arkay. inuu ka mid noqon doono ayuu og yahay. soo degori ah. waa kii uu warqadda u dhiibay. dhulka taabo. inantiinna wax caayaa doonaysaaye. aniga inantayda ma jirto, weli guur muu samayn. waardeg, abbahaagii afka adkaa. afkayga jilee uu nogonayaa walaal, ayuu sii lahaa markii uu dhulka u boodayey. askari ayaa meel kaabad ah ku taagan, inta taaggiisa ahna kor u qaylinaya. cali waxa uu fahmay in aanu dalka ku soo noqon karin inta mucjiso kale dhacayso. waa uu ogaa inuu arrintaa beenin doono caawaba. inta meesha laga kala tegayo ayuunbaa uu sugayaa. berriba Hargeysa ayuu ku noqon doonaa. hodan ayuu ku hagaagi doonaa. arooskii qarnigana waa loo qaban doonaa. riyo uu isaguba og yahay in qiyaamuhu ka dhow yahay. wax 10 daqiiqo ka yar ayuu mar keli ah dhex tegey dhulkii ay dowladda guunka ahi ka talinaysay. cagaha ayuu saaray carro ay rag kale ka yeelaan sida ay doonaan. waa cajiib, dhul isku mid ah oo la kala leeyahay. kaas u muuqdana waa laga soo eriyey, waayo kiisii ma aha. kan uu yimidna waa lagu dilayaa, waayo in aanu cod lahayn ayaa loo arkaa. durba waxa uu dareemay laydh wadata gumaad ka socda dhul aan aad uga fogayn halka uu imika joogo. dadkiisa waxa uu ku yaqaanaa dulqaad aanu aadame kale lahayn, dhabar adayg saa'id ah. doorkan
waxa dadkiisii kiciyey ma aha wax yar. Qofna uma dulqaadan karo cagajuglayn joogto ah. Maantana waa markii ay dadkiisu gadoodi lahaayeen. Dhiigga ayaa xididada madaxiisa kor u yaacaya marka uu ka fikirayo dadkiisa la laynayo. Kuwii dowladda ka tirsanaana ay agmarmarayaan. Labiskooda marka uu arko ayuu dhidid bilaabayaa. Marka uu askarigu soo eegana wuu foorarsanaya. Kul ayaa karinaya. Waanu cabirinayaa si aan loo arkin. Dhinac hodan ayaa kaga mudan. Dhan askartan xunka ah ee dadkiisii gumaadaysa ayaa kaga taagan. Dhanna tuuladiisii waliso ee reerkooda ayaa ka gubaysa. Toddobaadkii u dambeeyey kama uu maqlin wax war ah. Lambarkii uu wici jiray ayaa shaqadii joojiyey. 2 maalmoodba mar ayuu ka wardooni jiray. Sidii ay rabshaduhu u bilaabmeen, lambarkii wuu shaqayn waayey. Kulleyba waa uu rabay inuu soo booqdo reerkooda, se waa uu ka baqayey. Weliso si loo tago waa in la sii dhex maraa dhulkii uu warkooda hayay oo dhan. Taasi waa qisaas caadi ah. Naftana inuu halaago diyaar uma aha. Gacmaha ayuu jeebadaha geliyey. In yar ayaa ka soo raacday. Jactadka ayuu ka biiyey. Waa 5,000 oo isku taala iyo 200 oo midi jeexan yahay. Mar labaad ayuu tiriyey 5,200. Dib ayuu ugu celiyey inta uu si quman isugu laabay. Caawa marka uu Wajaale tago qaybta Somaliland ayuu ku cashayn doonaa. Caawa marka ay sanqadhu go'do askartuna kala tagto. Ma aha markii u horreysay ee uu Wajaale arko. In muddo ah ayuu ka shaqayn jiray intii aanu Hargeysa tegin ka hor. 6 sano ayaa ka soo wareegtay xilligaas. Haatanse weli waxa uu xasuustaa halkii la mari jiray marka labada dal loo kala gudbayo. Caawa dhan waab maqaaxi ah ayuu ku jiray. Cishaa 3 saacadood ka hor ayuu ahaa. Xilligii uu tallaabi lahaa ayaa la gaadhay. Laagtii uu dhex qaadi lahaa ayaa u muuqata. Cidi ma joogto. Waa in uu ka tallaabo uun. Kulleyba dadka lama eego sida baabuurta. Wuu dhaqaaqay. 2 daqiiqo kadib gacanta ayaa lagu hayaa. Askarigii xumaa ee maanta arkayay ayaa loo soo gudbiyey. Kiiska intii laga qorayay ayuu u fiirsaday saacadda. Waa xilligii uu ka carraabi jiray reerkii uu beerta u dhaqaalayn jiray. Waa xilligii uu dhankii hooyadii u carraabi jiray. Caawa waxa ay sugaysaa wiil aan u iman doonin. Waa la xareeyey. Qolka dambe ayaa la geeyey. Waana lagu qufulay. Dad intooda badani hurdaan ayuu meel ka cidhiidhsaday. Inta uu waagu baryayo ayuu damcay inuu hurdo ku sugo si loo sii daayo aroorta. Waa haddii uu gam'o. Naga kac, nijaas yahay. Waa gacan uu ku jiifsaday oo aanu ogeyn cid leh. Madaxii lahaa ayaa meel madow ka soo caytamay. Waa uu gartay inuu yahay qof Oromo ah. Raalli ahow, naadhiisi. Waa mid kale oo sidaada la soo tarxiilay ayuu hoos u yidhi. Balaayo la dabeecad xumow. Talow isna ma hodan baa laga soo kaxeeyey. Dad baas oo wada jacayl ah weeyaan. Bal muu aayar iska xoogsado. Markaas ayuu isqabtay. Aniguba maan aayar iska xoogsado ayuu is yidhi. Talow imise qof oo kale ayaa meeshan fadhiya oo Oromo ah. Mugdiga ayuu indhaha kala jiidayaa. Sababtana ma garanayo. Kulleyba waxba ma arkayo. Inuu isku qabto ayaa uga dhib yaraan lahayd. Maxaa sidan noo galay? Tirada dadkiisa ayuu dib ugu noqday. Waa qoomiyadda ugu tirada badan dalka. Degan dhulka ugu khayraadka badan. Sida ugu daranna loo yaso. Taas in badan oo hore ayuu ku daalay ka fikirkeeda. Muddooyin badan ayay hurdada u diiday. Caawa ciilku waxa uu ku kooban yahay goobtan cidhiidhiga ah iyo kan gacanta dheer. Wuu iskuusay. Jiqilka dhabarka lagaga qabtay ayaa xigay. Wuu ka durkay. Habeen la hadlo lama joogo. Wax badan ayaa korkiisa saaran. Qodxo badan ayaa ku taagan. Tan qolka ka muddayna ma aha tan ugu xanuunka badan. 2 saacadood kadib waa uu ka bixi doonaa sidii loo sheegay. Balse hodan, hooyadii iyo Hargeysa, sidee ayuu u iloobi doonaa? Taas waxa ka fudud buur la yidhaa faraha ku qod. Waagu fadhi ayuu ugu baryey. Dhulkana inta uu ka fadhiyo marka laga tago
meel kale ma bannaana. Ilayska dhuumashada ku soo gelaya halka ay ku jiraan ayaa daaha uga qaaday balaayadii xalay kadeeday. Gacanta oo laaban ayaa u barkin ah. Gadhka iyo timuhuna waa ay qariyeen wejigiisa. Wejigiisa ayuu u fiirsaday. Daal badan ayaa ka muuqda. Walow uu dabacsan yahay, haddana inuu jidhka isgelinayo ayaa ka muuqata. Waa qof difaac ku jira. Baro madow ayuu indhaha dushooda ku leeyahay. Si fudud ayaa loo arkayaa marka ay daboolan yihiin. Indhihii ayuu mar keli ah kala furay. Cali ayaa degdeg u sii jeestay. Maxaad naga eegaysaa? Naadhiisi. War hana cunin, ayuu keligiis maqashiiyey. Da ahaan waa laga wen yahay Cali. In ka badanna waa laga waaye aragsan yahay. Nin hadal karaya uma eka. Calina nin sheeko u jeeda ma aha. Inta albaabka laga furayo ayuu sugi kari la'yahay. Waa inuu meeshan ka baxo, Hargeysana ku noqdo. Caqli ma aha inuu weliso tago. Caqli ma aha in dhexda lagu dilo. Wallee caqli ma aha inuu hodan ka quusto. Bannaanka ayuu taagan yahay, isaga iyo intii la xidhnayd oo dhammi. Waxaa lagu amray in aan xadka dib loogu arkin. Waddankana ay hore ka galaan. Degmooyinkoodiina ay aadaan. Wuu ka soo dhaqaaqay. Dhanka bari ayuu u dhaqaajiyey. In yar markii uu socday, wuu soo kala jeediyey. Indhaha ayuu giiray. Orod ayuu qabsaday. Waa maanta oo uu hodan u dagaalamo. Iyo in uu weligii qoomamo ku noolaado. Dhankii laagta ayuu ku dhaadhacay. 3 askari ayaa eryanaya. In 20 ka badanina xuduudda dhankeeda kale ayay ku sugaysaa. Wax ilbiriqsiyo aan ka badnayn kadib, lug iyo gacan ayaa la hayaa. Maryuhuna 3 meelood waa ay ka jeexmeen. Dhowr badhanna waa ay duuleen. Askartii Itoobiyaanka ahayd ayaa la soo socdaashay. Qolkii xalay kiiskiisa lagu qorayay ayaa la soo geliyey iyada oo la sido. Waa uu quustay. Dagaalkiina wuu joojiyey. Tamar intii ku jirtay ayaa ka haaday. Xorriyaddiina sidoo kale. Madaxiisa oo foorara ayuu arkay qofka baryada la hor fadhiya taliyaha meesha taagan. Isha ciidu ka buuxdo ma ahane, ta kale ayaa u soo gudbisay muuqaal ay hore u aragtay. Aan Isabeeka, waan aqaanaa, waa walaalkay. Maskaxda ayuu ka jiran yahay. Amma deemna, waan iska tegaynaa. Fadlanna sii daaya, imika ayaan kaxaynayaa. Taliyaha ayaa askartii isha kala hadlay. Cali ayaa dhulka lagu sii daayey. Wuu istaagay. Qofkii uu arkayey ee taliyaha baryayey ayaa ku soo dhaqaaqay. Wuu ku soo dhowaaday. Wejigan xaggee ayuu ku arkay? Waa kii xalay qolka kula xidhnaa. Kii uu gacantiisa ku seexday. Wejigii saaka hurday oo imika cadhaysan. Aqoonsigii uu gartay iyo dhirbaaxada maskaxda dhaqaajisay ayaa kulmay. Wasakh, yaa ku yidhi carar. Aniga ila soco miyaanan ku odhan. Ina mari imikana. Taliya waad mahadsan tahay. Gacan ayaa la jiiday. Xafiiskiina waa laga saaray. Cali waxba ma uu fahmin. Inuu fahmana uma baahna. Xadhig aan muddo lahayn ayaa laga soo badbaadiyey. Sababtana weli ma uu garan. Ilaa hadda erey kama uu soo bixin midkoodna. Waa ay fogaadeen. Indhihii askartana ka libdheen. Waddada ayaa dhinac looga weeciyey Cali. Cadho wixii loo qabayna indhaha ayaa lagaga tufay. Naftaada miyaad nacday? Cod gariiraya, candhuuf tiro badan iyo indho midabkii ka tegey ayaa mar keli ah ku kulmay. Ma ogtay nimankaa Tigreega ahi siday imika kuu geli lahaayeen? Cali waa uu aamusan yahay. Cunaha gacan ayaa lagaga hayaa. Dhabarka tiirgeed ayaa loogu dhejiyey. Ma ogtahay inaad caawa noolaateen, nasakh yahow? Hawada ayaa ku soo yaraanaysa Cali. Adba ma dhaantid oo waad i bakhtiisay, ayuu hoos u leeyahay. Waxaan hubaa inaan degdeg laguu dileen. Laakiin dabada baytariya lagaaga guri lahaa. Doqon. Waa la sii daayey. Hawo uu degdeg u qaatay ayaa qufac aan kala go'ayn ka keentay. Imikana waan ku kaxaynayaa. Weliso ayaan ku geynayaa. Reerkiiniina waan u sheegayaa. Markaas ayuu miyirsaday. Reerkayga ma taqaanaa? Jawaab ma uu helin. Wuu ku soo dhowaaday. Walaal, reerkayga ma taqaanaa? Ka warran, aabbahay ma nabad qabaa? Ciyaalkii ka warran?
si cadho ka muuqato ayuu ugu soo jeedsaday. maxaan kuula ekahay mallaanqeyrta cas, reerkaygii maxaa ku dhacay ma taqaanaa? wuu ku soo dhowaaday. ii sheegtee waxaa ku dhacay ma taqaanaa? ay weydiin haddaba reerkiinnii. cali indho madhan ayuu ku eegayaa wejigan hortiisa taagan ee dubaaxinaya. waxba ma uu fahmin. cod khafiif ah ayaa ka soo baxay. weliso inaan ka imid maxaad ku garatay? wax ma kuu sheegaa? jawaab ma uu sugin. su'aalahaagu aad ayay u badan yihiin. hadal ma jiro. raggani dhiiggaaga ayay rabaan. adna halkanaad ordaysaa. fadhi ma yaallo. anna walaalkaa ayaan sheegtay. mar baa layna wada dilayaa. sii joog haddii aad naftaada nacday. anigu waan baxay. kalgacaylkii uu naftiisa u qabay ayaa mar keli ah ku soo degay cali. ninkii garhka weynaa ayuu daba cararay. ma rabo inuu sidan ku dhinto, walow uu daqiiqada ka hor naftaba nacay. ninkan kabaha waaweyn timuhuna ku baxeen ayaa kollay wax badan og. waa in aanu ka hadhin. hadalka ma uu badin, in badanna kama dambeeyo. 2 goor oo hore ayuu ka cadhaysiiyey. mar jiqil ayaa dhabarka laga geliyey, marna cunaha ayaa la tuujiyey. marka saddexaadna madaxa ayaa dundumo loo gelin karaa. iminka xaggaynu tegaynaa? ayuu ka daba keenayaa isaga oo hareeraha eegaya. meel aan lagugu gowricin. sidee ayay ku dhacday inuu dal shisheeye xasilooni ku ledi jiray, kiisiina uu cabsi kaymaha la wareegayo? hargeysa ayaa ahayd hoygiisa dhabta ah. hoygu waa halkii dugsi leh. horena waa loogu sheegay inay hargeysi ahayd dhul ay Oromo leedahay. carruurnimadii ayuu maqli jiray sheekooyin hargeysa ku saabsan. sooyaal la soo dhaafay oo magaalada aanu weli arkin ay waalidkiisu si kalgacal leh uga sheekaynayaan. xagga soo mar. carruurnimadii, xilli marka uu ka fikiro uu naco joogtada uu ku nool yahay. waa xilli uu werwer la'aa. xilli ay dhibtiisa ugu badani ahayd dhoobada cagihiisa ku qallashay sidii uu isaga fujin lahaa inta aanay hooye karbaashin ka hor. xilli ay shaqadiisuba ahayd inuu bustaanka ka ilaaliyo shimbiraha iyo daanyeerka. waa xilli uu wax kasta run moodi jiray, xitaa inay cadceedu dhasho dayaxa. balse imikaba muxuu dhaamaa beriga? imikaba waxa uu daba socdaa nin aanu aqoon u lahayn xilli colaadigayiga ka jirto. nin kaymaha la xulay inuu basaas yahayna aanu ogayn. imikaba waa carruur cagweyn uun. kabo khafiif ah oo u xidhnaa ayuu durba dhulku kolba mid la hadhayaa. wuu isku qoslay. 6 sanno ka hor dhulkan aqoon ayuu u lahaa, kamana ay suurtowdeen inuu sidan u labisto. kaba noocan ahna uu xidho. noloshu isbeddeli ogaa. dadku la qabsi dhowaa. koonfur bari ayay cadceedda u weydaarteen. dariiqa aan jeexnayn ninkan garhka weyni wuu garanayaa. maxaa baray haddii aanu hore u marin? waxa uu isweydiiyey ka u roon isaga. inuu u hadho kuwii caawa dildeli lahaa, iyo inuu kan kabaha waaweyn isku halleeyo. kuwaas waa la hubaa in aanay nolol ku sii daayeen. kanse shaki ayaa ku jira. kan ayaa la qaatay. tamar aanu haynin ayuu isgeliyey. inuu soo gaadho ayuu isku dayey si uu bal hadalka uun u gaadhsiiyo. garabkiisa ayaa uu dirqi ugu soo dhowaaday, isaga oo neeftuuraya. meeshan hore ayaadu martay soo maaha? gal biyo ah. isaga oo ka tallaabsanaya ayuu madaxa yara dhaqaajiyey ninkii. waa isbeddel wacan. markii hore astaan aadamaba ma uu lahayn. waa uu soo dabcayaa. taasi waxay dhiirigelin u noqotay cali. waa inuu muddo ka yara aamuso si aan loogu xanaaqin. in yar markii uu ishayey ayuu ku celiyey hadal kale. imise jeer baad martay halkan walaal? tamartan aad hadalka ku khasaarinayso inaad kaydsato ayaa kuu fiican. inkaari kugu dhacday oo dhulku kula go. balaayadan raamaha lihi bile uu yahay kuwii dadka qalin jiray ee la sheegi jiray. wuu isla yaabay haddana. nin weyn oo la qashay weli lama maqlin. hadalkii uu ninku yidhi ayuu soo xasuustay. tamarta la kaydinayaa waa maxay? miyaa la ordi rabaa? maystaankii baabuurka laga raacayay ayaa fog. waa inuu weydiiyo. baabuurku miyuu dhow yahay? waa goor ay maalinta iyo habeenku xamaantooda kala guranayaan. cirkuna indhaha isku sii qabsanayo si uu ula midoobo dhulka hoostiisa wadhan.
shabaqda ayaa go'day. Mar keli ah ayuu codkiisu hawada u jaray sida seefta. Ninkii ayaa qosol ku dhuftay. Ma uu ahayn qosol ah nooca lagu darsado. Ma uu ahayn mid naxariis wata. Cali waxa uu dhibsaday inta uu ninku dhammaysanayo dhawaaqiisa u eg kii dameerka. Waa uu ogaa in hadal kuloli uu ka dambayn doono qosolkaas. Maxaa tidhi? Haddana uu ku celiyey. Baabuur ah. Wuu sii watay qosolkiisii. Cali waa uu quustay haatan. Qosolka uu arko baabuur kama dambeeyo. Waa ku daayey. Weydiintii ayuu beddelay. Maya, yacnii berri, magaaladu miyay fog tahay? Isaga laftiisa ayaa fahmi waayey hadalka uu yidhi. Dhegayso, Cali ninka la dhahow. Cali ayaa dhinac uga durkay, cunahana kala durkay. Waa habeen, nal ma jiro aan ka ahayn ka Ilaahay ee laga yaabo inuu ilayskiisa ku ekeeyo daruuraha dhabarkooda. Waxaa la gaadhay xilligii aad afka 5 farood saari lahayd. Codkaaga ayaa ku haya inaad noolaato iyo in cadowgu maqlaan oo qudha laynaga jaro. Ilaa inta aynu gaadhayno meesha aynu u soconno, wax dambe hay weydiin. Inuu haya yidhaahdo ayuu la baqay. 10 faroodna wuu saaray afkii 5 sugayey. Waxa uu isku qanciyey inuu ninkani og yahay wax aanu isagu ogaan karin. Uu arkay wax aanu arki doonin. Sidaas darteedna uu taladiisa qaato. Cali dantiisa waa uu yaqaanaa. Ma aha dadka taagtaagan. Dhankii ay u ciirtaba wuu ula dhigaa. Marka laga reebo cararkii maanta uu ciidanka afka uga galay. Maanta caadi ma uu ahayn. Maanta wax kale ayaa waday. Isaguba waa uu og yahay. Imika marka uu xasuusto, qof kale ayuu isu arkaa. Wax ka suurtooba ma aha. Waayo waa uu yaqaanaa sida xaalad taagan looga dabaasho. Weligiiba sidaas ayuu ahaa. Waagii uu yaraa, ma uu ahayn qof dagaalama. Asxaabta tuuladu waa ay taqaanay. Marka ay carruurtu lagdinta ciyaarayaan, isaga kabaha ayaa loo dhiiban jiray. Ammaanada ayuu ku fiicnaa iyo markhaatiga. Cidna uma uu eexan jirin. Markay odayaashu u garqaadayaan ciyaalka, isaga ayaa la weydiin jiray wixii uu ogaa. Cidna garabka ma uu saari jirin. Taas ayuu caan ku ahaa. Waa sifo uu awowgii ka raacay. Waa sifo ay reerkooda oo dhammi lahaayeen. Dadkuna ku qadarin jireen. Waa sifo ka mid ah kuwa ay koobsadeen reerkiisu. Dhowr qarnina ay saldanadda reerka u soo hayeen. Awowgii ayaa ahaa garyaqaan. Cadaali dadku hadalkiisa ku qancaan. Hogaamiye codkar ah, qowlna leh. Isagu isuma arko inuu sifooyinkaas wada leeyahay. Inay ka wada maqan yihiinna uma haysto. Cagta ayuu kolba meel biyo yari fadhiyaan darayaa. Biyo dhoobo lehna ku casuumaya meel sharabaadku keli u lahaa. Socodkiisii waa uu isdhimay. Daalna waa u dheer yahay. Silican maxaa baday. Ninkii ayaa in badan ka horeeya. Kolba geed ayuu jiirayaa. Mid gaaban. Waa xilligii uu hayin jiray. Waa xilligii uu dhul uu kiisa ugu yeedho dushiisa si xaraga leh u sii dulmari jiray. Si aroortana halkii uu u soo maro. Waa ay jireen waxyaabo xasuusiya in aanu dalka u dhalan. Se inta karaankiisa ah, waa uu iska ilaalin jiray isweydiintooda. Waxaa ka mid ahaa ereyada dadku ugu yeedhaan. Kii oramada ahaa, aboo iyo qoti ayuu ugu nacbaa. Waa uu ogaa in aanay Soomaalidu dadka wax u qarin. Qof kastana intiisa sheegaan. Laakiin isagu waa uu ka duwanaa dadka naanaysaha leh. Isagu waxa uu dareemayay in dadka laga soocayo. In aanu iyaga ka mid ahayn. Siyaabo badan ayaa loo dareensiin jiray. In si toos ah loo eegi waayo. Indhahana la siin waayo ayaa ka mid ahayd. In marka uu hadlayo laga jeedsado ayaa ka mid ahayd. Muddo badan oo uu Soomaalida ku dhex jiray, waxyaabaha uu ogaaday waxa ka mid ah inay dadku 2 jeer uun xiisayn jireen. Marka ay hawl u diranayaan iyo marka ay ka riwaayadsanayaan hadalkiisa. Labadaas jeerba jahorad ayuu ahaa. Waa 2 jeer ee uu isu arki jiray inuu qof yahay. Isaguna waa uu ku raaxaysan jiray. Mararka qaar wuu ka badbadin jiray. Hadalka ayuu aad u sii adkayn jiray. Qosolkooda ayuu ka heli jiray. In ay dhalanteed tahay waxa xasuusin jirtay sida mar dhow uun looga maarmo.
cidina aanay fikir u weydiin doonin. Waxa uu ahaa agab la adeegsado marka loo baahdo. Agabka waxa uu kaga sii wanaagsanaa, wuu ku farxi jiray marka loo baahdo. Keliya waxa uu rabi jiray in mar kasta sidaas loola dhaqmo, inaan mar kasta la xusuusin inuu iyaga ka duwan yahay. Walow uu diir iyo diinba la wadaago, haddana inta aanu la wadaagin ayaa ka dhawaaq dheerayd. Waxa ka yaabin jirtay sababta ninka cad loo soo dhoweeyo, isaga oo diin iyo dhaqanba ka fog, isaga oo iyaga ka mid ahna loo fogeeyo. Mucjisooyinka aanu sharaxaadda u haynin ayay ka mid ahayd. Marka dambe waad la qabsanaysaa. In aad tahay sidaa ay dadku kugu sheegayaan ayaad aaminaysaa. Joogtaynta ereyada iyo falalka goonida ahi qalada ayay ka saaraan waxa ay yihiin. Waa la yaabaa, la diidaa bilowga, hadhowna lala qabsadaa. Heer waxa la gaadhaa aan waxba la iska weydiin. Weligeedba sidaas ayay ahaan jirtay. Balse sidaasi ma fiican tahay? Mase saxan tahay? Ayaase isweydiintaas keenaya. Qofka keenase ma la soo dhoweynayaa? Dad badan oo isweydiin lahaa waxay ka baqayaan in la takooro, lala yaabo. Aadame ayaynu nahay. Qofna ma jeclaa in kooxda lagu bahoobay uu dhinac isaga saaro. Waa la isu baahan yahay. Baahidaas ayuunbaa calina laga qadiyey kafaynteeda. Cid isweydiisaana ma jirto. Sidaas oo ay tahay, eeddii soo korodhaana waa isaga dushiisa. Waa sababtii imika dalka looga saaray. Wax aanu saamayn ku lahayn ayuu sababteeda u waayey inuu hooyadii dhinaceeda u seexda caawa. Dhul qoyaan iyo qabow badanna uu goore ugu marayaa. Dalkiisii ayaa la keenay. Inuu dhulku soo dhoweeyo ayay ahayd. Ficil inay ciiddu isu yeesho ayay ahayd. Ugana hiiliso kuwa soo eriyey. Wax aanu ahaynna ku sheegay. Se iyadii ayaa indhaha ciid kaga shubtay. Iyadii ayaa rabtaa inay naftiisa jarto. Tii uu ka yimid, naftiisa ayaa ka nabadgelaysay. Tan uu leeyahayna isaga ayay ku socotaa. Dhirbaaxada shisheeyaha waa aad ka gamacdaa, se gujada sokeeyaha ma iloodid. Cagaha ayuu kolba mid jiidayaa, indhuhuna waa ay u xidhan yihiin. Inuu nasiyo ayaa loo qaatay, kollayba waxba ma arkayaan. Shabaqda ka dhalataa marka ay kabuhu ka nixiyaan biyaha dul hawaara dhulka ayaa uu dhegaysanayaa. Waa ay sii durkaysaa. 4 saacadood iyo badh ayay socdeen. Imika ayaa uu fahmay wixii uu uga jeeday, tamartii la kaydsanayay. Bal maxaa uu maanta u orday? Intii halkaas kaga baxday ayaa imika wax u tari lahayd. Shabaqdii ayaa go'day. Mugud buu ku dhacay balaayadu. Wuu joogsaday. Cod khafiif ah ayaa dhegihiisa soo gaadhay. Soo gal xaggan. Xagad ku socotaa? Waa ninkii gadhka weynaa. Soo gal. Meeshu dhaxan ma laha. Gurina ma aha. Fadhiiso xaggaas. Jiifso haddii aad rabto. Waxba kama gelin. Taasi muhiim ma aha. Inuu fadhiisto ayaa u daran. Waa markii uu dhabarku laabmi waayey. Luguhuna jilbaha gagaarkooda ay garaaca ka bilaabeen. Seexo, anaa ku toosine. Waa markii uu ogaaday in heerarka daalka uu ka mid yahay mid aan la gam'i karin. Maskaxdu mar hore ayay weyday waxay ku shaqayso. Nasasho ayaanay ku jirtaa. Sidaas ayaa loo qaatay. Waayo, imika waxay isweydiin lahayd meesha ay joogto. Gudkan madow ee ay soo gashay iyo ninkan ku amray inay seexato. Waa markii lagu qalayay ayay ku odhan lahayd. Nasiib wanaag, mar horeba waa ay joojisay wareegii. Keliya waxay ka adag tahay in wixii ay hore u haysay uun ku soo celceliso. Waa 80ka dhammaadkiisii. Da'diisu weli 2 tiro ma ay noqon. Dhibcihii waaweynaa ee uu cirku dhulka ku shubi jiray ayaa sidii caadiga ahayd aan casarka ka soo daahin. Daruuraha madow ayaa cirka bartankiisa taagan, una sahlaya inay cadceedu aragto dhibic kasta inta aanay dhulka dharbaaxin ka hor. Kabihii iyo warafkiiba waxa uu kaga soo cararay beerta geeskeeda koonfureed, ceelka dhinaciisa. Waa saacad uu sugayay imaatinkeeda. Afka ayaa u furan. Wejigu cirka ayuu u jeedaa, carabkuna bannaanka ayaa uu yaallaa.
cunihiisa waxaa ka samaysmay wadiiqooyin biyo ah oo is-eryanaya, hoosna u cararaya ilaa ay gudihiisa ku libdhaan. Garanka cagaarka ah ee dhinaca ka jeexan ayaa ku dheggan laabtiisa. 6 feedhood ayaa dhinac walba ka muuqda marka uu iswareejinayo, isaga oo gacmaha baallaha u fidinaya inta karaankiisa ah. Galab kasta sidaas ayuu yeelaa. Hadhowna dharka qoyan ayuu degdeg isaga beddelaa. Maanta wuu is-iloobi. Weli halkii ayuu wareegayaa, carabkana uu laalaadinayaa. Dhegtiisa bidix ayaa mar keli ah kululaatay. Intii aanu indhaha kala qaadinba waxa uu arkay in maanta la qabtay. Indhaha ayuu degdeg u kala furay isaga oo qaylinaya. Waa dharbaaxadii hooyo. Waa hooyadii oo gadh weyn leh. Wuu u fiirsaday. Ka kac meesha, waynu soconaynaaye. Waa ninkii gadhka weynaa. Waxaa inta badan la yidhaahdaa haddii ay riyadaadu ka macaan tahay xaqiiqadaada, noloshaada ayaa isbeddel u baahan. Waa uu ku rayn lahaa inuu sii wato. Se socod kale ayaa sugaya. Intii aanu madaxa dhulka ka qaadinba, ninkii bannaanka ayuu joogaa. Waanu sii socdaa. Waxa uu dareemay inuu weli u jiifo sidii uu u sii jiifsanayay xalay. Xubin kasta ayaa halkeedii taalla, kuna qallashay. Kolba far ayuu soo laabay, kolba xubin. Biyika eesa ayuu weydiiyey markii uu soo gaadhay. Maxaa kaa galay meeshaan ka imid? Ayaa jawaabu noqotay. Belola dabeecad xumow, imika halku degan yahay talow. Eesa jiraata. Jikaarkii ayaaba la qaatay. Imika hadalba ma leh. Cali waa uu adkaysan kari waayey. Gaajada iyo waxay tahay mooyaane, isaga oo buuftaamaya ayuu ninkii orod ku soo gaadhay. Garabka ayuu dhuftay. Ninkii ayaa dhinac loo tuuray. Ma neef xoolaha baad noo haysataa? Ila hadal, maxaa kaa qaldan? Ninkii baa dhinac u istaagay. Indhuhuna fideen. Ilaa shalay baan ku daba socdaa. Waa run waad i badbaadisay, laakiin addoonkuu ma yihi. Miyaan ku soo qasbay? Soco isdabber. Ninkii ayaa u celiyey. Maya, naf baan ku soo mooday. Waan ku soo raacay, adna sidii dadka ila dhaqan. Maxaad rabtaa waa sax? Maqaanka Enyo. Kuma. Magacaygu waa kuma. Maxay kale ayaad rabtaa inaad weydiiso? Xagaynu joognaa? Ma garanayo. Aan hinbeeko. Xagaynu ku soconnaa? Waliso. Waliso waan gartay, goormaynu gaadhaynaa? Iftaan. Sahan dambe. Haddaynu u horrayno. Iftaan waa haddii aad weydiimahan aad wadda joojiso imika. Cali dhegta bidix ayaa cuslaatay. Oo intaasoo dhan waynu soconaynaa. Kuma ayaa qosol ku dhuftay. Cali qosolka noocan hore ayuu u maqlay. Laakiin ma saxayo. Ninkan codkiisu kuma cusba. Waliso meel socod lagu gaadhaya ma aha. Cali waa uu farxay. Markaa baabuur ayaynu raacaynaa imika. War ma dhaqaaqnaa? Waqti baa inagu socdee. Horta ii sheeg, ma baabuur ayaynu raacaynaa? Jigjiga lug ayaynu ku tegaynaa. Markaas ayaynu tashan doonnaa. Imikase halkan baabuurka ma raadsan karno. Waa sababta aan jidka weyn uga soo baydhnay. Shalay 3 ila socday ayaa lala degay. Xagee la geeyey ayuu la soo booday, isaga oo hareeraha eegaya. Cadceedda aan soo bixinna raagsanaya. Ma hubo, samid kale ayaan hubaa, in haddii aynu sii joogno meeshan, kuwaa laynagu dari doono. Cali hore ayuu u tallaabsaday. Naf la gooyo ma hayo, mid lagu ciyaaraana kuma jirto. Maanta ma aha maalintii uu dhiman lahaa. Meel lagu dhintana ma joogo. Kuma oo sunniyaha bidix samada geeyey ayaa soo daba kacay. Jidkan maxaa ku baray adiga? Ma oramadaad basaastaa? Kuma ayaa gadhka xoqday. Galbiya ahna ku foorarsaday. Wejiga ayuu ku maydhay. Inna wuu cabbay. Imikana adigaan tikreyga kuu geynayaa. Hal mar ayay wada qosleen. Cali ayaa degdeg u aamusay. Horta waxaan ku weydiiyey, inaan reer Walisa ahay maxaad ku ogaatay?